maamulaha wasaaradda dhirta iyo daaqa iyo deegaanka ee degmada Karadag Cabdi Colaad oo maalmihii ugu dambeeyay kormeer ku kala bixiyay deegaanada waqooyiga ee degmada Karadag ayaa marwuxoonka TV uga warbixiyay waxa uu sheegay inay halkaas ku soo gubeen dhuxul si sharci darro ah loo shiday taasoo uu sheegay in loo gudbiyo loona iibgeeyo gobolada Puntland waxaana sheegay inay wasaaraddu tallaabo adag ka qaadi doonto cidii dambe ee si sharci darro uga dhuxulaysata deegaanada hoos yimaada degmada Karadag iskuna dayda dhuxusha iyo xaalufinta deegaanka waxaana ka dhawaajiyay inay sharciga la tiigsan doonaan cid kasta oo isku dayda xaalufinta dhulka waxaana isaga arrimahaasi faahfaahinaya hadaladiisii kamid ahaa waraysiidahan galoolka iyo soolka leh ee degmada xukunto haddaan warbixin kooban ka siiyo waxaan ka baxnay dhexdii subaxnimo ayaan ka baxnay 7 bisha fadhiga baan ka bilawnaa howlgalkaygii ujeedkeyguna wuxuu ahaa in aan u soo wacyigelino dadka oo u sheegno in aanay jirin dhuxul dambe oo la shidaya oo qofka inta la soo qabto garada sidii la keenayo iyo jeelashan dhow ee beerka loogu geeyo iyo khudaarta la daba joogo ee go'aan cad wasaaraddu ka qaadatay cid alla cidii dhuxusha dib loogu arko military haday tahay ciidamada haday tahay in waa hawshii imika laga wada gobolka Saraar in cidii lagu qabto argaaw xukunkooda ah iyo Madeera waxaan maray dhoomo dusheeda iyo soolooda marmaray eelcadan u tag eelcado meeshan ugu adag ah oo wax alla wax nala shaqeeya aan ka weynay wax xulaysataa mooyaan maamulkeedii inay sahayo oo hareerkeedii iyo xadii la isku murgiyo halka ay joogaan isla aatan had cad aan loo sheekin kii hore la yeeyo waxa aynan wacyigelin u sheegno inaano dib oo dambaysa lama qabalayo wax kan waa tii u dambaysi walaydii imanaya ciidamadii baa imanaya dambiil oo dhan waa noo qoran yahay wacyigelintii baan halka uga balawno gudidii iyo waayeelkii baan ugu dhigay oo yiri qaadanay haddii alla beedka hadan la xushidi jirayna diyaadaad inaan maanta cidna la dhaafay 300 kiish baa togayaale hanaga tiginayna guba ciidana noo dal waxaan ku wardaan kormeerkaasan ahaaye aan magaalada ku noqdo ciidankii iyo hawshiisu abaabulo ma jirto baa labada gaar u taagano inta haddana la joogtaan oo laga baqay haddii tartagtaana hadda lagu bilaabay waydihoyna wadla joogna taas garateen baan ku niri waxaan la hadlaynaa wasaaradda iyo suduuhi soo ciidan ugu soo tiro siduu gobolka iyagoo siduu gobolkan la hadlay waxaan saasa xaalku yahay wixii waa taala aroorta inuu gubisku bilowna rabnaa dambiilayaashan inuu qabanay rabnaa noo soo ciidan ciidankeedii ku dhow yiri waxaan ugu dhow meesha la yiraahdo fadhiga 40 kilomitir oo jita suduuhi wixii salaada ana ciidan ka taqaan hawsha gala hana ka iman hadii albeedkeeda mar hadii guddiin la shaqeynayso inagu oo la guddiin la shaqeynaysa absolute waa la shaqeynaa guddida baarti kalkii baa dhiman ciidamada taan ana kugu maqan sidii baan ku heynay 6 subaxnimo ayaan bilownay bala tusaalka wax ku haysan togi baan tagnay kaan dhuxush maxaa ka galay oo taala war maxaynu yeelaa de maxaan ka eeganayna gubno ciidankii la wada soo galaya ma cid baa imika inagu haysataa jirta dabkan sunna waxaan u gaadhay 6 galabnimo qado waxba ma naan helay uma kala goyn baan ku intii ay la geeyeen aan arkaynay indhahay ugu qabteen waanu farax burburtay honkaygal TV wararka gobolka Sanaag.